السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا وركي عالمك وهذا هنقول لك داوتان تلفزيون كم ذا حبنا برسن تي في استوديو سكوات مقالة هرقيسا وركنا وحاود ديار هوية كان عاوه دوي بيدمو أنا جوا عبد الفتاح محمد عبدي فضفضة وركا قدر كرون لنا وحكم ذا قدوميها حسب المعارض كهوعد إنجنير فيصل علي وراغي أيام ما أنت تشيدي قطبة نعيب بدن تابانيسا وكهل ليسا تاريخ حسب قاسيوعد قدوميها حسب المعارض كهوضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أيام ما أنت كور بحية شركة حساب تقرن كجمهورية الصوماليلان داوديال kuwaasi waxay haayeen qodobadii warka ugu doorka roolaa imika haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wasiirka ka socda xukuumadda Soomaaliland oo maanta howlo shaqo u yimi gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa waxa ay kulamo la qaateen muruqmaalka iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala dekedda Berbera shirjaraayid oo ay qabteen kadib markii ay kulamadaasi la qaateen maamulka dekedda Berbera iyo shaqaale weynaha dekeddaasi ayaa waxa halkaasi ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu nimi in aanu shaqo uga warhano shaqaalaha kala duwan saamaynta heshiiskan ku yeelanayo muxuu ahaa iyadoo cabatino ay naga soo gaareen kuwaasoo dabcan aananu qariibsanayn xukuumad ahaan warwarka iyo ku soo kordhay maadaama ay dee maqleen in dekedii muxuu ahaayey aynu shirkad wadaagay iyo maalgashi aynu samaynayno shirkadda DB Weelna ay maamuli doonto waa halkan kulanadii waxaan ugu nimi maareeya dekedda iyo mas'uuliyiintii dekedda iyo muxuu ahaayey dhowr kulan baan halkan ku qabanay xaruntan aynu fadhino mar waxaan la kulanay tiro luxdan oo ay soo qaybsadeen muxuu ahaayey shaqaalaha sifadoorku waxaan kaloo la kulanay shaqaalaha muruqmaalka guddi ay soo qaybsadeen oo miisaan leh geel A iyo B oo waayeelkoodii halkan ay hadda nagu weheliyaan waxaanu ka dhageysanay dareenadoodii iyo cabatinkoodii iyo warwarkoodii sidaan carabka ku dhuftayna wax aanu qariibsanaynay ma ahayna waa wax aanu u garaabayno oo macquul ah xukuumadda madaxweyne Axmed Silaayo ee aanu wasiirada ka nahay waxa maalgashiga aanu u doonaynaa dekedda Berbera inuu wax soo kordhiyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu wax soo kordhiyo dekedda magaala madaxda gobolka Saaxil Berbera inuu wax soo kordhiyo dekedda uma wadno in waxaanu inuu shaqaalaheena xuquuqdiisa lumiyo waxaanu xukuumadii qarankan ee la doortay ee ka mas'uulka ahayd fi aakhirada DB Weel iyo dekedda dhismaheeda iyo maalgashigeedu haddii shaqaalaheena ku shaqo beelayaan xikmad iyo nuxur uu salka ku haya maalgashigeenu ma jiro waxaanu wadnaa in ka badan 300 maanta ka shaqaysa in ka badan inay shaqo ka hesho 300 waxay isugu jiraan shaqaalahaasi shaqaale kala duwan dhammaantood waxaanu cadaynay in qof shaqo waaya aanu jirin xuquuqdooduna ay tahay mudamin mas'uul dawladdu ay ka tahay si aan baan soo afkaranay way noo cawdeen muxuu ahaayey waana laga dhex shaqeeyay warar badan baa noo kala tagay annaguna waanu ka raagnay waxaanu ku kala tagnay safgarad waxaanu ku kala tagnay inaanu muxuu ahaayey xuquuqdoodii iyo kalsoonidoodii aanu beero waxaanu ku kala tagnay in ay gudiyo kooban soo qaybsadaan inaanu arrimahooda meel ku tiirin annagana waxaa naga go'an inaanu dhammaantood maslaxadahooda meel ku tiirino waayo dowladdoodii baan nahay mas'uul baanu ka nahay runtii shirka jaraa'id waxaanu unu qabanay inaanu gunaanadkii shirka aanu kolleyba waa loo dhigtaagayay intaa inaanu ku muujino iyagana waa mahad celinaynaa dhammaantood iyo mas'uuliyiinta dekedda iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo dhammaantood waxaan intaa ku darayaa xukuumaddii dadka weeye maaha cadow ku soo duulay halkan kaba wadna cadaawad caburin xadhig iyo belo maaha dowladihii aynu la dagaalamayna tani waa dowladdii dadkani doortay ee lahayd ee laxjaclada ka lahayd waxaanu leenahay bulshada gobolka Saaxil dhanxiirka iyo dhangagaalaha
iyo warxuma tashiilka iyaan dhegihiina bele laga buuxinin wanaag baynu mareeyaha dekada berbera injineer cali cumar cali xoorxoor oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay maalgashiga lagu samaynayo dekada berbera afkooda ay la gaaraan oo wixii ku saabsan barnaamijka ka khuseeya ay kala hadlaan runtii aniga waxay tahay farxad waayo barnaamijkan dekadee developmentkeedu waa barnaamij ballaaran shaqaalaha bayroolka iyo ka hawl fara badanoo ka taagan may jirin laakiin muruqmaalka in ay oo runtii dee doonayay inay wax faahfaahsan xukuumadda ay ka helaan maantay dhacday si wanaagsan waa lagu wada hadlay si madax bannaan baa loo wada hadlay nin raggu dee isku wada cod may ahaynoo kala jaajaad bay ahaayeen laakiin guud ahaan waxaan markii dambe ku heshiinay in ay soo sameeyaan guddiga soo samaystaan waxyaalaha asaasigae ay doonayaan in ay wax lagala qabtana ay ku soo koobaan qoraal marka arkaas saasuu ku dhamaaday maanta runtii hawl fara badan oo runtii wanaagsanna way ahaydoo wax weeyaan baashii annaguunaan ka sheekay jirnay berita haddii alayla xamaalka ayaa ka sheegay sidoo kale qaar ka mid ah muruqmaalka dekada berbera ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay wixii anagu aanu caloosheeda ku jiray iyo wixii qalbiga ku jiray iyo wixii aanu doonaynaba waan sheegay iyaguna wixii ay doonayeen ay moodeen inay noo sheegaan way noo dhameeyeen way noo sheegaan ma ismaanaan dilin oo sida iminka la sheegayo manaanaan ku mudaharaadin dagaal qalafsanina nama dhex marin hadalkoon nagama duulin si kastoona wada hadlaba haddana waanu isugu dulqaadin waan isku ogolay gudidii wasiirada nooga yimid Hargeysa anagoo muruqmaalkii geeleeyay geelibi ka kooban geelikii dambe kulan labadii wixii ka dambeeyay si fiican baan hadalku noogu bilaabmay waan wada soo hadalay hadalkuna waxa weyn noomu dhamaanin waxa weey gudi inta ka kooban iyo gudi anaga iyo hadalka ka saan qaadi doonto wixii dambe inta sir ka socota war baa laga soo saari doonaa laakiin maanta waa kii koobaad halkii buu nooga soo Umar Cali Ducaale telefishinka madaxa bannaan Barsan TV Hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlaysa taariikhda xisbigaasi sida uu warkaasi noogu hayo wariye Mawlid Ibrahim Maxamuud gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo jeediyay qurba joogta taageersan xisbiga mucaaradka oo hadaladiisina waxa kamid ahaa dalkeena xoreeyay ilaahayga abaartii naga qaaday ilaahay isku ka keenaba mahad weey walaal xusbigan aanu caawa joogna cadaalad iyo daryeelka fikrad ahaan horta 1999 baan sameynay bishii February 1999 ayaa markii uu qolqol ka bilaabantay dagaalkii oo horeeyay ee SM dhaxmaray burco ku dhaxmaray ayaanu shir ku qabanay magaalada London waxaanu soo saarnay war maxaa dhacay joo imaka oo maqanaysa meedkeena aanu engegin oo ilaahay dalkeena oo xoreeyay maxaa waxay qulquladan dhacday waxaanu soo saarnay marka waxaanu sameynay forum baan sameynay shariir buha oo la ilaa SAP oo marka dhalinyaraheedo UK ku dooleed oo kamid ahaa ninka imaka عمود كأه عمود مهين برعق جامعة ده بروفيسور سليمان درر وكم بدها أيام مرتقات كانوا سميه ما كان واحد صوص عرني لبعضنا سومان هاي ستي كنتي إن مكاننا ساي حكم كلا قالوا لما رجعنا عسكريو إن هذون lack of leadership يعني هجان أو النجاح ماضي waxaan tashanay inaan hoggaanka soo wanaagsanaado oo siyaasadda gallo waxaan naga soo dhex galay dagaalkii sokeeye 94 waxaan markaa sameynay 94kiina guddiga loo jeeday Somaliland Peace Committee guddiga nabadda ee Somaliland baa sameynay
ونورمود قدوميها حسن نياك سمتر إلى أنه حسن عبد حسن بون كحيجين كها أنا وأفاياك كها محمد علي باير كوتشري sidoo kale waxa uu ka warbixiyay xilligii la aasaasay iyo sababihii loo aasaasay waxaana uu sheegay in xisbiga mucaaradka uu cud yahay xisbi ku dhisan cadaalad isla markaasina ay hortaagan yihiin caqabado tiro badan isla markaana aan lagaga bixi karin beelbeel ee loo baahan yahay in lagaga baxo wadajir ka ahaa maxamed cali bayr ku jiray ilaa 9 baanu ahayn sanad baanu ka shaqeynay dawladda cigaal ilaa uu naxariisayo xoogay ka soo jeedeen beelaha garxajiska la oran jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ku guulaysanay waatii 96kii uu dagaalkii joogsaday 97kii dib loo abuuray loo soo doortay cigaal Somaliland markaan eegno taariikhdeeda run ahaan waxay 97kii markii cigaal loo la doortay ee labaad ayay nabad buuxsantay from that day ilaa maalinta waxay soconaysay horumar bay sameeynaysaa markii 2002 la sameeyay 2000 kii markii la sameeyay 2001kii referendumkii la sameeyay constitutionka ayaanu markaa goosanay inaanu galno siyaasadda xisbiga waxa xisbigii labaad ee samaysmay buu ahaa ee suurtageliyay inay multi party systemku uu ka hirgalo ilaa maanta xisbigu wuxuu hal iyo goor dantiisa waxa weey inuu sidoo kale waxa uu hambalyo u diray beelaha maxamuud garaad iyo sidoo kale beesha qayaad oo wadajir ugu dhawaaqay xabad joojin ka dhexdhacday labada beelood dhawaan waxa aad iyo aad u fiican maanta waxa weey inay dabeel fiican ka soo bilatay xagga bariga waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya beelaha maxamuud garaad ee ku shiray magaalada ilaa Ari Cadeeye ee soo saaray bayaanada quruxda badan leh ay Somaliland walaalooda wax la qaybsanayaan diiwaangelin ka qaybgeliyaan ayaan aad iyo aad u hambalyeynaya waxaan u hambalyeynaya beesha Bahra Same ee Maxamed Garaad iyo beesha Qayaad Axmed Garaad ee wada heshiiska iyo xabad joojinta iyo nabadda ku dhawaaqayna aad iyo aad baan iyaga u hambalyeynaya walaa waxaad moodaa in barigiina naacaw fiican ka imanayso dadkii Somaliland bilaabayna ay ku noqdeen qabiil iyo reero maanta khatarta Soomaaliya haysata kama soo jeeda awdal kama soo jeeda deegaanada bariga maanta waxay ka soo jeedaa waxa weeye gurbaysha dhexe ayaa Soomaaliya khatar ku haysa maanta oo u kala baxday reer u kala baxbaxday oo waxba isku ogoleen oo tuulo wada yeelan karin oo magaalo wada yeelan karin oo dekad wada yeelan karin oo ceel wada yeelan karin walaalayaal Mawlid Ibrahim Maxamuud Mawlid Jees telefishinka madaxa bannaan ee Barsan TV magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta ka warbixiyay shirkii xisaabta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida warkaasi nagu hayso Mabruuka Ciise Maxamed saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa kulan ku yeeshay maanta waxaana kaga wada hadlayeen saami qaybsiga baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro markuu shirkaasi dhamaaday uu waramay warbaahinta waxaanu uga waramay waxyaabaha kaga hadlayeen shirkaasi hoos gareeyay kulamadii aanu yeelanay 28 bishii 6 madaxweynaha halkan baan ugu nimid saddex xisbi qaran madaxweynahana noo yeeray waxaanu noogu yeeray hal ajende oo ahaa inaanu ka soo talino ama ka soo talo bixino ama xal u raadino arrinta saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada ee doorashada 2017 kulamo badan baanu yeelanay oo dhowra kulamada gunaanadkoodu wuxuu noqday aanu isku waafaqnay laba qodob sida halkan laga sheegay oo ahaa arrinta saami qaybsiga kuraasida doorashada 2017 inaanu madaxweynaha u soo celino qodobka labaadna wuxuu ahaa in xalka madaxweynuhu gaaray ee ku saabsan saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada axsaabtu ay aqbalaan Mabruuka Ciise Maxamed TV-ga caalamiga ah ee Barsan magaalada Hargeysa afhayeenka guud ee xisbiga wadani Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa maanta ku dhawaaqay inuu u taagan yahay jagada murashaxnimo ee madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi wadani sida warkaasi nagu hayso Nimco Cabdi Mawlid xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa ka warbixiyay shirka baxarasaafka ay ku dhawaaqeen madax dhaqameedka gobolkaasi saaxil ee Berbera waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya shirka baxarasaafka ee ay ku baaqeen qayb kamid ah beelaha gobolka saaxil xisbiga wadani
wuxuu aaminsan yahay in shirar badan oo noocaas ah soo mareen taariikhda shirbeeladyaduna ay tahay mid ku suntan hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye oo soo bilaabatay ilaa intii ay ku raadinayeen xukunka shirarkii ugu badnaana ay dhaceen ee beelnimo min koona ilaa koona min sanaag ilaa awdal inay dhacaan shirar badan oo beelnimo oo dhacaya inta xisbiga kulmiye jirana ay talada dalka hayaan way soconayaan waana waxaan arki doono waa taariikh ku suntan xisbiga kulmiye hase yeeshee waxaa ilaahay mahadiya in aanay marnaba beelaha shiraya aanay ka soo bixin wax dibindaabyo ku ah qarannimada iyo amniga Somaliland waana mid ilaahay loogu mahadnaqo sidaa darteed xisbiga badani wuxuu ku baaqayaa inay xukuumaddu ka dayso culayska ay ku hayso gobolka saaxil ee ay boonbooninayso ama shirka qabashadiisa ha noqoto ama duruufo kale oo jira ha noqotee cabdirashiid xasan mataan xukuumadda madaxweyne Siinaaya wuxuu ugu baaqay inay joojiso caburinta ay ku hayso shirka beelaha Somaliland ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray inay dib u eegto safaaradda Turkiga ee Somaliland Nimco Cabdi Mawlid Barsan TV magaalada Hargeysa ganacsadaha Mareykanka ah ee Warren Buffett ayaa murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ku xujeeyay inuu shaaciyo cashuur celinta uu sameeyo sida warkaasi nugu hayo wariye Saddam Hussein ninka taajirka ah ee reer Mareykan ee ganacsadaha weyn ee lagu magacaabo Warren Buffett ayaa waxa uu ku xujeystay musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump inuu shaaciyo cashuur celinta uu sameeyay Mr Trump waxa uu sheegay inuusan shaacin karin ilaa maamulka dhaqaalaha ay ka dhameystiraan hubinta laakiin Mr Buffett waxa uu tilmaamay inaysan jirin shuruuc diidaysa in la bandhigo cashuur celinta dadkana loo ogolaado inay su'aalo ka keenaan soo ka hadlay kulan ay qabteen taageerayaasha Hillary Clinton Mr Buffett waxa uu xaqiijiyay in isaga xitaa lagu wada hubin uu diyaar u yahay inuu la kulmo Mr Trump si ay u soo bandhigaan cashuur celinta ay sameeyeen Saddam Hussein telefishinka caalamiga Barsan TV magaalada Hargeysa saraakiisha caafimaadka ee dalka Mareykanka ayaa laba jibaaray digniinaha ay ka bixinayaan halista dumarka uurka leh ay ugu jiraan xanuunka Zika sida warkaasi nugu hayo Xamse Dinaari saraakiishan dhanka caafimaadka ee dalka Mareykanka waxa ay laba jibaareen digniin ay ka bixiyeen halista ay dumarka uurka leh ugu jiraan xanuunka Zika oo ka dilaacay magaalada Miami ee gobolka Florida khubarada xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurka CDC ayaa ku wajahan magaalada Miami si ay u xoojiyaan xakamaynta looga hortagayo in cudurkaasi faafo Zika waxa uu leeyahay dhibaatooyin waaweyn oo carruurta ay ku dhashaan oo ay ka mid tahay madax yaraan maamulka waxa ay sheegeen 14 qof ay qaadeen caabuqa kadib markii ay qaniintay kaneecada deegaankaasi ku sugan dhammaan kiisaska cusub waxa lagu arkay degmada Miami ee gobolka Florida xarunta CDC waxay kula talinaysaa dumarka uurka leh inaysan magaaladaasi aadin lamaanayaashan dhawaan tagay halkaasina waxay u sheegay inay ka fogaadaan galma ama uur ugu yaraan 2 bilood digniin safarada ee Zika la xiriira waxay dhaqan galeen qaybo kamid ah bartamaha iyo koonfurta America Caribbean iyo Cape Verde barasaabka gobolkaasi Rick Scott waxa uu baaqayaa in khubaradu ay u degdegaan baaritaanka loogu hortago Zika waxa uu muujinayaa sida uga niyad jabay in aqalka Congress-ka uusan meel marin dhaqaale lagula dagaalamo caabuqa Zika Xamse Maxamuud Sheekh Barsan TV Hargeysa daawadayaal waxa intaas naga dhan waxaan war caalamka idinka haynay tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waaniga Cabdi Fataax Maxamed oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh